abgaal iyo xawaadle waa dad walaalo ah oo wada dhashay isdhalay dadka iyo dhulka iyo deegaankuna uu ka dhaxeeyo weligoodna wada jiri doono abgaal iyo xawaadlo waxyeeliyo inaan xumaato wadaagnoon kala culumno waxyeeliyo inaan xumaato wadaagnoon kala culumno jacaylkeena ka weyn xitaa lamaanayaashii waa ay ku jiraan fariintan lamaanayaashii isqabay ee labada reer kasoo kala jeeda ayaa fariintan diraya yeeliyo inaan xumaato wadaagnoon kala culumno jacaylkeena ka weyn askartiina kama maqna oo iyaga oo labada reer kasoo kala jeeda laakiin gacmaha is haysta oo furmaha dagaalka ku sugan ayay muuqaalkan iyana soo duubayaan dad walaala anahaye iska dhiga awar maaha oo wax wada qabsada odayaashii dhaqankana kama marna oo wafdi uu hogaaminaya imaamka mudulood ayaa goordhow ka degay beledweyne halkaas ay u tageen nabad haddaba waxaa bilowday jaalanji nabadeed oo labadan reer loogu baaqayo inay xiisada meesha ka saaraan isla markaana dadka walaalo ah ee wada jira ay nabad ku noolaadaan soo dhawaada saaxiibayaal idinkuna ka qayb qaado adiguna oo fariinta nabadeed nala faafi muuqaalkana leegno saaro si sheer garay marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka nagu dooro daaweyn qalliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii baraha bulshada iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo meel walba oo ay Soomaalidu degto waxaa loogu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan nabadda wada noolaanshaha walaaltinimada isla markaana degdeg loo soo afjaro colaadda guud ahaan Soomaali meel walba ay joogto laakiin muuqaalkan wuxuu gaar u yahay oo uga hadlaynaa colaadda ka taagan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe gaar ahaan beelaha walaalaha ah ee wada dhashay ee abgaal iyo xawaadle kuwaas oo xurgufi ay ku dhex mareysay deegaanada dhaca xuduudda bilihii la soo dhaafay sidoo kalena dhacdo naxdin badan ee ka dhacday degmada Ceelbaraf ee Shabeellada Dhexe taas oo ah wax reer ay ku heshiiyeen ama ku midoobeen ama ay la dhacsan yihiin laakiin kaliya ay tahay una dhacday si aan sax ahayn isla markaana ay geysteen dad aan ka shaqeynaynin nabadda labada dhinac haddaba waxa baraha bulshada ka bilowday baaqyo nabadeed iyo fariimo loogu baaqayo inay nabadda ka shaqeeyaan wada dhalashada fiiriyaan walaaltinimada fiiriyaan wada jirka fiiriyaan dalka iyo dadka iyo deegaanka ka dhaxeeya fiiriyaan maamulka iyo sidoo kale wada jirka ka dhaxeeya ay eegaan isla markaana leesaga soo gabagabeeyo dhammaan dhibaatooyinkii dhaca si haddaba taas kor loogu qaado maanta waxaa magaalada Muqdisho ka ambabaxay wafdi ka socda beesha mudulood oo uu hogaaminayay imaamka beesha mudulood imaam daahir waxaana uu goordhow gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas waxaa ku soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayay ugaaska guud ee beesha xawaadle iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan isla markaana waxaa laga wada hadlayaa sidii dhacdadii dhacday raaligelin looga bixi lahaa looga garaabi lahaa isla markaana xal waaro oo kama dambaysa looga gaari lahaa iyada oo sidoo kalena la rabo in colaadda gaamurtay ee muddada faraha badan halkaasi ka taagneed in degdeg loo soo afjaro haddaba imaamka iyo 15 qof oo uu hogaaminayo oo odayaala oo beesha mudulooda ayaa Muqdisho ka ambabaxay halkaas ayna u tageen warar soo baxaya waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu odayaashan ka dalbaday inay arrinta galaan isla markaana xiisada la dejiyo dawladuna ay la xisaabtami doonto dambiilayaasha iyo kuwa askarta dilay isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono oo cadaaladda la horkeeni doono haddaba tan ayaa u muuqato in la rajaynayo in nabad lagu soo dabaalo deegaanka dhibaatooyinka iyo colaadaha jirana la soo afjaro si ay dadkaasi walaalaha ah oo diriska ah oo wada dhashay isna dhalay ay nabad iyo sidoo kale deganaansho ay ugu wada noolaan lahaayeen muuqaalkan haddaba waxa uu daaran yahay fariintaasi nabadeed oo aan jeclaystay inaan idinkana idinla wadaago aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa ka codsanaya adigana haddii kusoo gaarto qof walba oo Soomaali ah meel walba uu joogo inuu fariintan nala gaarsiiyo dhinaceeda ay qosayso aad iyo aad baa u mahadsantihiin